بسم الله الرحمن الرحيم maanta iyo taariikhdu tahay 29 bisha toddobaad 2026 waxaan halkan magaalada Gaalkacyo ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan guul ka mid ah guulaha ay gaareen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taasoo lagu xaqiijiyay hawlgalladii socday maalmahan oo dhan ama bilihii la soo dhaafo dhan ee lagu bartilmaameedsanayay argagixisada madaxdooda gobolka Shabeellada Dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa waxay ka fuliyeen 4 duqeymood oo waaweyn oo dhanka cirka ah taasoo loo qorsheeyay laguna hagayay xoga sirdoon ayna fuliyeen lana fuliyay taariikhdu markay ahayd 27 bisha toddobaad 2026 oo daraadahay maalinkii daraadahay meesha la beegsaday waxay ahayd guriga Villa Aadan Yabaal la yiraahdo oo ay ku shirayeen xoguhuna keeneen inay ku shirayaan horjoogayaasha maleeshiyaadka khawaarijta al-shabaab ee degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe shirkan horjoogayaasha argagixisada ayaa waxaa shir gudoominayay waali ku sheega argagixisada al-shabaab ugu magacaaban gobolka Shabeellada Dhexe Yuusuf Ciise Kaba ku tukade oo la yaqaano khatarta iyo xasuuqa iyo dhibaatada oo deegaamadaas asaga iyo kooxdiisu ay ku hayeen sanadihii la soo dhaafay oo dhan howlgalkan oo u dhacay sidii loo qorsheeyay ayaa waxay argagixisada al-shabaab lagu gaarsiiyay khasaaro xoogan waxaana lagu khaarajiyay howlgalka 11 ka mid ah horjoogayaashii shirku halka uga socday waxaana sidoo kale dhaawacyo xoogan la gaarsiiyay 4 horjooge sidoo kalena howlgalkan ayaa waxa lagu gubay 4 gaadiid ah oo kala ah hal booyad 2 cabdibile iyo hal gaari oo baraada howlgalka oo si qorsheysan u dhacay lana beegsanayay maleeshiyaadkii madaxdii maleeshiyaadka ee shirka halkaas ku lahayd ayaa runtii waxaa la xaqiijiyay oo shalay iyo maantay galinkeedii hore lagu soo xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen 11 kaas horjoogayaal oo kala ah magacyadoodu Macallin Carab wuxuu ahaa madaxa sirdoonka gobolka Galgaduud 2 Sheekh Cabdullaahi Maxamuud aw Jilabow oo ah kusimaha waaliga degmada Aadan Yabaal 3 dadkii ku geeriyooday halkaas oo nafta ku ay waxa ka mid ahaa Macallin Zakariye amiirka amniga gobolka Hiiraan 4 Suldaan Cali Muuse suldaanka argagixisada u qaabilsanaa beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed beesha Cawrmala 5 Naqiib Sheekh Cumar Xaashi naqiibka beesha Ajuuraan ee gobolada Jubbooyinka al-shabaab u qaabilsan 6 Naqiib Axmed Xaashin naqiib lagu sheegay inuu beesha ogaadeen u qaabilsanaa argagixisada 7 Salmaan Dheere madaxa garaashada gobolka Shabeellada Dhexe 8 Cabdifataax oo ahaa ilaalada Yuusuf Kaba ku tukade 9 Xaashi oo ilaalada Yuusuf Ciise Kaba ku tukade 10 Macallin Suulay horjoogaha jabhadda al-shabaab iyo 11 Xudayfa xubin sare oo xafiiska dacwada al-shabaab ka tirsanaa sida ka muuqata magacyada meeshaas ku jira oo gobolka Galgaduud Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe horjoogayaal ka tirsanaa iyo niman kale oo qabaa'ilka qaabilsanaa waxa halkaas ka socday qorshe weeraro iyo qaraxyo la rabo in deegaamada iyo degmooyinka saddexdaas gobol aan soo sheegnay in laga fuliyo oo kooxdaasi ay qorsheynaysay oo loogu soo diray kuwaasi in Kaba ku tukade ay xoojiyaan qorshihiisa magacyada horjoogayaasha ku dhaawacmay howlgalkan waxa ka mid ah Yuusuf Ciise Kaba ku tukade waaliga argagixisada ugu magacaaban gobolka Shabeellada Dhexe oo runtii sida xoguhu ay sheegayaan dhaawac culus oo halka ka soo gaaray sidoo kale waxa ku dhaawacmay Cali Dhuux oo xoghayn u ahaa Yuusuf Ciise Kaba ku tukade 3 waxa ku dhaawacmay Cali Yare oo horjoogaha maaliyadda gobolka Shabeellada Dhexe ahaa 4 waxa ku dhaawacmay
Usama nin magaciisa lagu sheegay oo horjooge zakawaadka gobolka Shabeellada Dhexe oo dadka aad dhibaato u geysan jiray. runtii dhaawac iyo dhimashada ka soo gaartay kooxaha argagixisada ah waxay guul weyn u tahay shacabka Soomaaliyeed ee kooxahaasi ay dhibaatada ku hayeen iyo dawladda Soomaaliya oo runtii hoggaanka sahanka iyo sirdoonka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka maalmahan dambe aan bilownay in ciidamada furimaha hore ku jira ay la diriraan kooxaha argagixisada ee furimaha ku jira laakiin horjoogayaashooda gadaal ku qorsheynaya qorshayaasha ku maleegaya qorshayaasha dhagarta ah ee shacabka Soomaaliyeed la rabo in lagu dhagro nabadiisa iyo xasiloonidiisana looga hor yimaado nimankaas in la beegsado ayaa go'aan lagu gaaray waxaana runtii socotay maalin dhaweeto waanagii qabanay macallin Jiinaw Ibrahim oo bishaan bilowgeedii lagu khaarajiyay gobolka Shabeellada Hoose kuwa kale horjoogayaal oo gobolka Shabeellada Hoose sidaas la midana kooxahan oo aan helnay xogtooda la helay xogtooda inay abaabulayaan qorshayaal dhagar shacabka Soomaaliyeed liddi ku ah xasiloonidooda iyo nabadgelyadooda in tallaabo cad laga qaaday oo maantay intoodii badnayd meesha laga saaray qaarkii kalena ay dhaawacyo meeshaas uga baxeen waxaan runtii u digaynaa oon ugu ogeysiinaynaa kooxaha argagixisada madaxdooda inaanay jirayn meel ay ku nabadgalaan inaysan jirayn meel ay gabaad ka dhigtaan in shacabkii Soomaaliyeed uu nacay in shacabkii Soomaaliyeed meeshii ay tagaan iyo meeshii ay galaanba ay runtii la wadaagayaan xogtooda guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo aan kala socon lahayn waa la nacay kooxahaasi kooxa la nacay oo ilaahayna nacay shacabka Soomaaliyeedna nacay adduunkiina nacay way marka waxaa runtii ahayd guul ka mid ah guulihii waaweynaa oo ciidankeenu ay ku talaabsadeen waxaan mar kale sheegaynaa Yuusuf Ciise kaba ku tukade oo muddo dheer dhibaato ku hayay shacabka ama ummadda degan gobolka Banaadir iyo gobolada dhexe oo ninkaasi la yaqaano sida uu odayaasha u bahdelay sida uu qabaa'ilka Soomaaliyeed ugu jeesjeeso siduu dadka dhintay oo ciidankeena ama dadka ay dilaan ugu jeesjeeso ninkaasi maanta inuu yahay dhaawac culus laguna raad joogo arrintiisa lana soo xaqiijin doono meesha ay ku dambaysa dhaawaciisu waana runtii guushaasi waxaan uga mahadcelinaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii kaalin weyn oo muuqata ka qaatay sidii horjoogayaasha loo beegsan lahaa sidaas la midana ciidanka nabad sugidda oo ayaguna shaqadan shaqo la mid ah haya taasi waxay keenaysaa in maleeshiyaadka madaxa laga guro madaxdoodii madaxa laga guro maleeshiyaadkuna ay noqdaan dad wireless laga gooyay madaxdoodii oo meel ay ka amar qaataan waaya taasina inay fududeyn doonto in ciidanka xoogga dalku howlgallada u qorshaysan ay u fududaan doonaan kadib kooxahaasi marka la niyad jabiyo xarumahoodii waaweynaa madaxdooda lagu khaarajiyo in kooxduna aysan helayn kooxaha maleeshiyaadkuna inay waayi doonaan qiyaadaadkoodii iyo hoggaankoodii halkaasna ay ku fududaan doonto howlgallada ciidankeenu ay ku jiraan waxaan sii wadi doonaa beegsiga madaxda kooxaha argagixisada ilaa midka u dambeeya uu meesha ka baxo waxaan sidaas la mid ah wadaynaa howlgallada dhulka oo looga sifaynayo deegaamada kooxahaas gacantooda ku jira shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa siday ciidanka ula shaqeeyaan inay shaqadooda sii laba jibaaraan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa macawisleyda Hiiraan oo runtii wacdaro fiican muujiyay maalmihii la soo dhaafay kooxdaha qawaarijtana jab xoogan ayaga iyo ciidanka ayagoo kaashanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in jab xoogan lagu gaarsiiyay furimo dhowr ah oo dadka Soomaaliyeed ay arkeen khawaarijtii oo dhabarka jeedisay oo kala cararaya oo maaragtay meel ay istaagaan la waxaa runtii la yaab leh dadkii dhimashada jeclaa kuwii lahaa hala dhinto kuwii lahaa hala shahiido oo shahaadadu lahaa janna noo soo carfaysa in la arko sidii xoolihii iyo dugaag kayn ku jiray oo kale ka yaacaya xabadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku hayeen oo dhulka ay ku hayeen dhulka Hiiraan waxaan leenahay guuleysta
إن شاء الله تعالى dadka Soomaaliyeedna ha u diyaar garoobaan waad u jeediin waad arkaysiin kuwa dulinimada idin badaya inaanay ku nabadgelayn meelihii ay joogeen sidaas awgeed inaysan rajo badan inaan lagu xiri karin kooxaha argagixisada oo ay tahay in kooxaha si weyn loogu gadoodo deegaamada ay haystaan qof walba oo soo sheega qof walba oo ka soo warrama oo xog bixiya kooxahaas horjoogayaashooda meelay joogaanna abaalmarin lacageed oo weyn ayay helayaan waan loo ballan qaaday waxay la xiriiri karaan telefoonada loo assign gareeyay arrimahaas waxaana leenahay waa guuleysanaynaa waxaana la joogaa xilligii khawaarijtu ay soo gabagaboobi lahayd guuleystaan leeyahay waa mahadsantiin